munaasabadan kooban ee lagu weyneynayay 55 sano guuradii ka soo wareegatay marka la aasaasay ciidanka badda iyo ilaalada difaaca xeebaha Soomaaliya oo ku beegan 10 Febraayo oo uu soo qaban qaabiyay taliska ciidanka badda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxa ka soo qayb galay munaasabada ciidanka badda saraakiil taliye ku xigeenka ciidanka badda ilaalada difaaca xeebaha Soomaaliya ahna kusimaha taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed waxaana looga hadlay muhiimadda maalintan ay u leedahay ciidanka badda Soomaaliyeed taliye ku xigeenka ciidanka badda ahna kusimaha taliyaha ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha Soomaaliya Admiral Guuto Engineer Cabdi Warsame Isaaq ayaa ka hadlay taariikhda ciidanka badda wuxuuna hambalyo u diray dhammaan ciidanka badda Soomaaliyeed taliyihii ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ku hadlaayo magaciisa Admiral Guuto Abbas Amin Ali oo hadda shaqo qaran dibadda ugu maqan mar dhowna Ilaahay ku rooyay soo noqon doono ayaan waxaan rabaa maanta in halkan ka soo jeediyo sanad guuradii 50 sanaad ee ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha waxa la aasaasay sanadka markuu ahaa 1965 arintaas ayada ah waxa jira oo ka sii horeeyay saraakiil xigeenno oo dibadda loo qaaday gaar ahaan Masar tababar loo geeyay mar alla markay soo noqdeen kadib markii lagu soo xiray takada Berbera xeeb ilaaliyaal iyo tarbeeda xambaariyaal saraakiil xigeenadii ka soo noqotay Masar ayaa la wareegtay xeeb ilaaliyaashii lagu soo xiray marsada Berbera tarbeeda xambaar iyo waxay ahaayeen xeeb ilaaliyaal wax kastaba ha noqoto si fiican ay saraakiishii markaas joogtay waajibaadkooda u gudanayeen niman aqoon leh waa ahaayeen hase ahaatee waxa weeye sanadka markuu ahay 70kii ilaa ay laga gaaro 85tii ciidanka badda wuxuu sameeyay kororsiimo aad iyo aad u xoog badan uu sameeyay oo tababaro meelo kala duwan ayaa lagu soo qaatay ay ka mid yihiin dalka Russia oo ugu badnaayeen iyo meelo kaleeto oo ay ka mid yihiin Iraq Masar Talyaaniga iyo ayaa tababaro saraakiil xigeenno loo gudbiyay waxaan hambali u dirayaa dhammaan saraakiil xigeennada alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda inuu sanadkiisa ku gaarsiiyo barwaaqo iyo guul taliska ciidanka badda iyo difaaca ilaalada xeebaha Soomaaliya ayaa dib u soo celiyay dugsigii lagu tababari jiray ciidanka badda sidoo kalena waxay isku diyaarinayaan dhameystirka tayada ciidanka badda Soomaaliyeed Muuse Ismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho